بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وعنا ونكسن جوب كستا يجور كستا جوكتان وبرنامج كان يفتمين تو أنمات تسكت تاجنو حالة السناج قار أهان مقالة عيلبو شركي سلطنة سعيد خسارو يوجاميها عبادوين تعير وكم يدوبي بربركا يترتردا يخلخل جلين تمام الكخاتم استيد وسير محمود آدم جيسوت يوفتجي مقدشة كيمي oo hadda laas caanood ka soo degay deedna afka saaray halka iyo ceel buu isagoo wata gawaare tiknika iyo ciidan fara badan oo ciidankii SSC khaatumo xaaladu faraha ay ka sii baxaysaa Siciid Khasaaro gabal baas u dumay iyo cabaad weyntii oo qunud la fadhida qodobkay kale waxaan rabaa inaan isku dul taago reerka Axmed Hartiliyaada Moorcase iyo ciidankoodii inay ceel buu aadeen oo Siciid Khasaaro raaceen waxa social media la soo galiyay General Lukul ciidan wato oo waxa weeye Puntland ka tirsan oo ceel buu iyo waxa weeye shirka saldanada warsangeli ee halka masiirkooda waxa weeye ka shiraysa inay dagaal ku qaadeen iyadana waxbaan ka oranaya barnaamijka dug soo gaarsiin shargada hadii salaad ku joogto u soo tuko hadii kale nabi ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qodob koobaad waa war degdega wasiir Maxamuud Aadan Geesood iyo wafdi uu hogaaminayo oo Muqdisho saacado ka hor ka soo duulay ayaa hadda waxay ka degeen magaalada Laascaanood waxa la sheegayaa wasiirku in aanu magaalada ku hakan maadaama ballanku ahaa in ceel buu la isugu yimaado halkaas oo waxgaradkii siyaasiyiintii aqoon-yahankii isimadii warsangeli ee saldanada faca weyn oo warsangeli ay ku ballameen in ceel buu la isugu yimaado halka lagu shiro deedna walaalahood waxa weeye SSC khaatumo sidii wax isugu darsan lahaayeen deedna Laascaanood la isugu iman lahaa shir ballaaran oo waxa weeye harti weyne ah oo Axmed iyo Maxamuud iyo Siciid baa halka inta la isugu taro saddexda deegaanka wada degan ay halka ku shiraan deedna maamul ballaaran oo liyada grid khaatumo SSC halka lagu yagleelo laakiin ninkii Siciid Khasaare ahaa oo la socda qoladii argagixisadii SNM oo cirre maanta hogaamiye ka yahay ayaa geed dheer iyo geed gaaban waxay u soo fuleen in ay burburiyaan shirkaas in aanay dhaqaaqin waxaadna ogeydeen Siciid Khasaaro isagoo doonaya xildhibaanada waxa weeye Ishaaq in uu ku bedeshay gobolkii Sanaag shirkii Nairobi lagu galay wuxuu ahaa irrow waxaad isiisaa xildhibaanada iyo doorka aniguna waxaan ku siinayaa gobolka Sanaag waxa degan reer badan oo hartiya laakiin majority-ga gobolka waxa degan saldanada faca weyn ee warsangeli reer dhan oo halka degan oo hartiya ayaa Siciid Khasaaro wuxuu dabacay inuu dhaafsado 42 xildhibaan oo waxa weeye Isaaq leeyahay ayuu wuxuu ku bedeshay gobolka Sanaag warsangeli waa saldanad fac weyn waa dad aqoon-yahan iyo siyaasi iyo waxgarad leh arrinka way ka dhiidiyeen way ka dagaalameen way tashadeen Siciid Khasaaro maanta wuxuu dagaal galiyay oo uu rabaa dad ehela oo wada dhashay oo hartiya oo isku dhiiga oo isku dhacaana inuu maanta isku laayo ciidan buu wuxuu ka saaray Puntland wuxuuna geeyay gobolka Sanaag isagoo la halka dagaal baan ka galaya wuxuu wataa niman horgalaa oo waxa weeye warsangeli ka soo jeeda oo aan doonayn masiirka warsangeli iyo rabitaanka warsangeli iyo warsangeli wuxuu doonayo iyo meesha u roon iyo aqoon-yahankoodii waxgaradkoodii wixii ay isku raaceen dhowr qof oo horgalaa oo uu wato iyo ciidan ayuu halka geeyay ciidanka ilaa shalay ilaa xalay waxa social media iyo Twitter iyo Facebook lagu soo qoriyay General Lukul Bayr in uu dagaalka ku jiro in ciidan Axmed Hartiya ama Moorcase ama Dishisha oo waxa weeye tiknika wata in ay waxa weeye iyagoo Puntland ka socda oo ciidanka Puntland ah inay ceel buu weerar ku qaadeen oo warsangeli weerar ku qaadeen wax allaale iyo wax ka jira haba yaraatay ma jirto General Lukul baan meesha joogin ciidan Axmed Hartiya baan joogin mid Dishisha baan joogin meel ay ku qoran tahay haba yaraatay waa propaganda iyo wax social media la soo galiyay iyo Puntland baa wada socota hatta waxa la sheegay ciidan leelkase waxa weeye ciidan intuu soo kaxay ciidanka Puntland ku jiro oo waxay u socdaan waxa weeye ceel buu socdo ka dagaalamayo oo Sanaag ka dagaalamaya meel ay ku qoran tahay warkaas ma jiraan janankana ana afkayga kula hadlay hal qof anigu ma sheegin nin qorisita oo ciidanka ka mid ah anigu kama hadlayo laakiin ciidan kolaya oo tiknika wata oo Axmed Hartiya oo Dishisha oo waxa weeye General Lukul hogaaminayo oo Siciid Khasaaro soo diray oo warsangeli weerar ku ah haba yaraatay ma jirto waxaan anagu shalay u dagaalameynay
oo dagaalka ugu jirnay sidii SSC Khaatumo lagu heedo isugu taagi lahayd maamul u noqon lahayd sool iyo sanaag maamul la yaqaan dad walaala oo wada dhashay oo ehel ah oo aan waxba isu qaban siday wax u qabsan lahaayeen ayaanu shalayna dagaalkan u galnay waxa weeye dhulkayga iyo deegaankayga iyo dadkayga iyo maatadayda iyo hooyooyinka iyo ubadkayga waxaanu uga dagaalanay in ay dayacmaan oo masiirkooda nin kale ugu taliyo Siciid Khasaaro waa wax kaliya ku koobaban dadka waxaan rabaa waxa weeye social media iyo baraha bulshada waxa weeye waxa la wareegayana ha ka waantoobaan hadii aanay ka waantoobin waxa wallaahi oo billaahi oo tallahi qaawanaanta lagu wada hadlaya waxaan arkayaa dad badan oo wax ma garata oo dhuuni qaata oo qabyaaladii madax martay oo waxa weeye cidida hoosteeda fadhaya waxaan u dagaalameynay SSC Khaatumo inay maamul noqoto maantana waa maamul uma baahna carqaladayn uma baahna sheekayar oo niica waa idin digaya digniin bay ka tahay anu cidii horgal ah oo waxa weeye fataalada cabaad weynta sida shiina baahane inuu gumeedka shiina baahane fulayga ah ee baqa ee waxa weeye cabaad weynta ka baqa ee maalin walba ay guriga ugu daataan fulayga ah ee qof sokeeya markuu arko shiina baahane shiina gaajo kabala qof ehelkiisa markuu arko laba xiniyood buu yeeshaa shiina macaluun qof ehela markuu arko laba xiniyood buu yeeshaa qof cabaad weyn markuu arkana dhali baa ka jeexma dhali dhika u doodaya cabaad weyn iyo argagixisada SNM waxay la tahay inuu waxa weeye ugu doodayo inay wax siiyeen iyo inay macaluush ka biyeen shiina macaluun maaha baqdin weey uu ka baqa nin tolkiis iyo ehelkiisi iyo dadkiisi iyo waxa weeye masiirkoodii ka tashanayo dad walaalahooda waxa weeye dhulbaantay iyo warsangari waxa ma kala aha waa dad wada dhashay sool iyo sanaagna hal cadow bay leeyihiin eegay hal cadow bay leeyihiin waana hal qof maanta waxa weeye dabka kala dhex dhigaya ee social media fadhiya waa fulaynimo waana baqdin oo cabaad weynta ka baqo ma aha inay baahi ka tireen ma aha shiina macluul ilaahun baa waxa weeye wax diiqsin kara laakiin waa fulay ninkii dhirbaaxa buu yaqaan laakiin qoliyaha kale ee maskiga soo gashanaya ee media fadhiya ee dacaayada raqiiska ah fulinaya waxaan leeyahay war anagu bari baanu ka nahay ciidan aan leenahay baan halka gelin warsan gali baan weerar ku hayn shalay waxaan u dagaalamayno General Dukul u dagaalamayo Ahmed Harti dishaba ugu dagaalamayo qofkii ugu horeeyay oo Hartiya oo ku dhintay meesha liyaado las caanood xabad ugu horeysa ku dhacdo Hartiya marka dhulbaanta laga reebo nin Ahmed Harti abuha nintii laabuha waxaan ugu dhimanaynay oo ugu dagaalameynay inay maamul noqoto SSC Khaatumo maantana warsan gali haduu nooga baado hub iyo ciidan iyo calaf diyaar baan u lanahay masiirkooda iyo waxa weeye sharafkooda iyo karaamadooda iyo walaalahooda wax ku darsanayaan waa idin garab taaganahay warsan galiyo wax allaale iyo waxaad waxa weeye naga dalbataan hiil iyo hooba diyaar baanu idin lanahay inaad maamul noqotaan idinka iyo walaalihiin dhulbaahante maamulkiina intaad isku darsataan maamul xoog weyn oo ciidan leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo laga haybeysto oo masiirkooda ka tashada inaad yeelataan baan anagu waxa weeye idinku garab taaganahay hal xabad iyo hal ciidan iyo hal qori iyo hal gaari oo Ahmed Harti leeyahay eegay cid kale ba ha joogtay inaanay soo gaarin ceelbu inaanay sanaag imanayn haddaanu imanaynana waxaanu u imanaynaa annagoo idinka idin difaacayna annagoo Siciid Khasaare ka soo horjeedna Siciid Khasaaro gobolka sanaag inuu bixiyo oo cabaad weyn iyo iidoor siiyo xildhibaanana ku bedesho cashuurtii shacabka reer Puntland intuu gurto Muqdisho la tago eegay wallahi baanan aqbalayn oo billahi aqbalayn oo tallahi aqbalayn intaasi waa intii social media iyo beentii propagandadii lala wareegayay horta iga qabta qodobkeena labaad abaar ka hor waxaan idin sheegay wasiirkii ganacsiga Maxamuud Aadan Geesood inuu ka soo degay magaalada Laascaanood isla hadda isagoo magaalada ku hakan isagoo 8 tiknika wata ayuu magaalada ceel buu afka saaray markii uu soo degayna waa kan wasiirku haduu soo degay hatta magaalada kuma hakan toos buu dhaafay 8 tiknika uu haystay waa lagu way soo dhamaatay qof dambe oo la dul saarnaado way soo dhamaatay shacab dambe oo dhigooda la cabo way soo dhamaatay in la isku dul noolaado way soo dhamaatay been iyo propaganda dadku waa tashanayaan masiirkooda ka tashanayaan
gobonnimadooda ka tashanayaan deegaankooda u tashanayaan cid allaalay cid is hor taagi karta iyo cid waxa weeye wax ka bedeli karta haba yaraatee ma jirto sicid khasaaro loo xidhnaan maayo tiim khasaaro loo xidhnaan maayo maamul baa la samaysanayaa warsangeliyo dhulbahanta waa dad walaalaa wada dhashay annagaa garab taagan annagaa ku taageerayna naf iyo maal waxaanu hayno fartaanu ka saaraynaa maamulka khaatumo grid khaatumo in la dhiso oo labada gobol isku darsamaan oo cabaad weyn iyo argagixisada SNM waxa weeye madaxa dhulka loogu dhufto ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo gobonnimadeeda sidii caadad ahayd markii horeba gobolka waxa weeye Sool iyo Sanaag bay ka bilaabatay maantana gobolka Sool iyo Sanaag bay ka bilaabanaysaa oo wallahi abaan ku maamulkaasina waa maamul dhameystiran sicid khasaaro ee dad barooran lahayd iyo dad cabaad lahayd iyo dad ooyi lahayd beenta kaga daran Ahmed Harti baa la socda leelka san la socda Great Puntland oo dhan baa dagaalamaysa war meeshan reer isu yimi baynu nahay tan marka ay waxa weeye warsangeliyo dhulbahanta hawshoodu soo dhamaatana waxa weeye boosaasay ka bilaabanaysaa boosaaso dhexdeeday ka bilaabanaysaa waa la xisaabtamaya nin dambe oo tuug ah oo cashuurta shacabka reer Puntland cuna oo waxa weeye Muqdisho la aada oo anaga maalinka isaga cidhiidhi la geliyay hada hawiya cadow inoo ah Muqdisho cadow inoo ah Xasan Sheikh ma arki karno Xasan Sheikh iyo adigu isku mid baatiin Xasan Sheikh wuxuu dhibaateeyay dadka reer Muqdisho adiguna waxaad dhibaataysaa dadka reer Puntland adiga iyo caruurahaaga iyo xaafadaada iyo familkaaga maanta waxay cunayaan cashuurtii shacabka reer Puntland maxaad ugu qabatay Puntland halkan intuu ka cararay markuu kiisku adkaaday hadda wuxuu sii taagay gaalkacyo waxa weeye bacaad weyn meel u dhaxaysa waxa la dhagax dhigayaa laamiga waa la dhagax dhigayaa waa mujaamilo waa sheeko aan anagu soo dhameynay iyo film aan bar hore soo daawanay ayuu maanta wuxuu la taagay bacaad weyn iyo gaalkacyo dhexdeed wuxuu leeyahay reer mudug baan qancinaya laamiga baa reer mudug u dhagax dhigayo oo la xisaabtamaya indhaha faraha la iska gelinayaa inaan dib la isaga xishoonayn haddaa sicid khasaaro nin tahay oo hooyo ku dhashay ceel buu tago xabad ka rid anaa ku tusayay in boosaas hilaacday hilaacinu boosaas kaaga baxo anaa ku tusayay nin haddaa tahay ceel buu tago warsangeli baashiraya maanta waxa weeye masiirkooda ka tashanayay inta ciidanka haysid haddaa nin tahay xabad ka rid kolley saacad wallahi saacad fadhiimaysid jabaahiirtii iyo daraawish iyo warsangeli iyo hartiweyne oo wada socda baa fadhiya inaad wiilasha yaraa isleedahay meesha kee saacad aan fadhiyin hal saac aan fadhiyin laakiin waxaan ku tusayaa boosaasan inay kaaga bilaabato oo gobolka bari kaaga bilaabato oo meel aad u dhaqaaqdo inaad garan weydo sicid khasaaro meel aad u dhaqaaqdo inaad garan weydaa igu ballan sicid khasaaro intaan Muqdisho la gaarin meesha ugu bareen lahaa waa Muqdisho warsangelina waxaan leeyahay warsangeliyow maanta Jaanis baad haysataan aqoon-yahankiini waxgaradkiini dhalinyaradiini eegay taladiinu maanta idinkeedu goda oday ha dhageysanina caaqil ha dhageysanina mid oday koofiyad bacla ha dhageysanina masiirkiina nimanka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka iyo wasiirada iyo dadka waxgaradka adeertashada maanta oday waxba lama weydiiyo oday maanta hadaanu kula socon waxba lama weydiiyo warsangeliyow waxa halka ina dhigay oo waxa weeye dadka Soomaaliyeed halka dhigay oo ina baabi'iyo waa oday koofiyad bacla waxba ka dhageysanina aqoon-yahankiina dhalinyaradiina waxgaradkiina gacmaha isqabsada ceel buuna shirku caawu ka bilaabanaya hadda Maxamed Aadan Geesod waa tagay Cabdirashiid hore u joogay waa la fadhiyaa social media soo haray Soomaha nimanka maskiga gashanay shakada yar niicda marba qoraalada yar soo qoriyo wallahi billahi tallahi caadi inuu soo arkayna aniga ninkii iga dheeri ha iga boodo toos baynu soo arkayna waana la is wareysanayaa oo wallahi social media dhiciisa inuu toos naasa iskaga garaacna hadeeda darrada iyo qurunka iyo qashaambiirka iyo gefka iyo darrada habeen iyo maalin dadka la daba taagantiin hadeeda joojin dhuuni raac wada dhalay wada caada qaatayaasha shilimaad ku shaqeeya waa idinka shisheynaa waan idinka sokeynaa baladeegi waxa weeye sicid khasaaroy rag isu joogay bal ceel buu tago xabad ka rid bal Sanaag inta tagtid nimankaas shalay tiri waxa weeye waa bixiyay anaa bixiyay oo idoor baan siiyay idoor oo Sanaag qaata aad lahayd bal nin hadaa tahay maanta intaad u tagtid xabad ka rid warsangeli waa salaam iyo taladina maanta gacanteedu ku jitaay guuleysta oo waxa weeye maamulka khaatumo maamul ballaaran oo waxa weeye aad leedihiin oo cid walba afka idinkoon nool baa rabaa in la iibsado sicid khasaaro idinkoon nool buu rabaa inuu iibsado ha aqbalina saldanad baatin sharaf baan leedihiin xasan baa ciidan soo diray kaad shalay farmaajo u gowracaysay miyaan ahayn xasan kala
kaad shalay u gowracaysay farmaajo maaha aabaha iyo nimanku aqoonida isku qabo tug la kordhigo la hoos dhigay war khayr iyo baraka idin rajaynayo wixii war soo kordha halkan aad kala socotaan barnaamijka si share garaya warsanayna waadiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh